السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وهذا كان هان إيمان وعطانا بيني قل صوتان وعني قاه ولا شين حنان دقن برنامج كنا نوا برنامج كي أرمها قيسك برنامج كنا نما توحن قصة قادم تونا شن قضب أو كقب قاتا هرمركا قيسك يا بلدا شعيلك يو ولبا حريرك شن داس قضب واحد يا سمسان حريرك ني جورجينا بونقن تونا ميت كوليسا قضب كاس فرادنا وحوق سيارة qodobka afraadna wuxuu noqonayaa inaad hawsha guriga ka xaawisid jacaylkaaga maalin ay iska caajisan tahay ama weekendiyada maalmaha fasaxa haddii aad wadankii joogtana maalinta khamiista iyo jimcaha kaleeto intaa u timaada aad tiraahdahay maanta waxaan u baahanahay inaan ku xaawiyo maanta hawsha gurigaan wada qabsanaynaa maanta aan ogaado waxa aad haysid waxaan rabaa inaan kula qaybsado maalintaada waa daashe 7 beri 6 beri oo kale taasoo shaqeynaysay maantana wayna aniga kula shaqeeyo markay cuntada digsiga ee dabka saarto abasasho u jarjartid markay yaayada fiiqaysana hilibka u jarjartid la sheegaysatid la qososhid la saaxiibtid taasna waxay sameynaysaa wax walba ay qalbigeeda ku haysatay inay kuu sheegto ayadoo kula sheekaysanayso adigoo dhahaynin haye maxaa kaa qaldan maxaa qabtaa maxaa dareemaysaa maxaan kaa halayay adoona sidaas u weydiin inta ag fadhiisatid jikada la gashad alla sheekaysatid dhihi kartaa hay xaaji ii waranhay maxaa iska kaa bedalay maalinta ku guursanay iyo maanta maxaa leedahay unku naaqus oo aad leedahay maanta waxaas way fiicnaan lahayd in laga bedelo nolosha ama waxaas way fiicnaan lahayd nolosha in lagu kordhiyo ama alxamdulilah inaan waxaas haysano aad ilaahay ku shukrinaysaa markaasna ayadoona kaa baqaynin ayay waxay kuu sheegaysaa wax walba waa dhaliilo adiga leedahay taasna waxay kuga caawinaysaa inaad dhaliilahaaga bedashid inaad dhaliilaha adiga aad leedahay iyo waxyaabaha qaladaadka adiga kaa dhaco aadan ogeyn inay qalad ahaan adiga kaaga dhacdo inaad bare bedashid marka ragow caawiya jacaylkiina ma aha jacaylka arrintan waa arrinta qoyska caawiya xaaskiina xaajiyadaada caawi hawsha guriga ka caawi adiguna hadafkaaga ahayn hawsha guriga kaliya inaad ka caawisid oo hadafkaaga yahay inaad ogaatid wixii qalbigeeda kuugu jiro oo naaquse wixii jacayl oo qalbigeeda kuugu jiro waxba ma dhimo laakiin wixii xumaana qalbigeeda kuugu jiro maalin intaas dagaashan hadal xun isdhahdeen oo qadaf ay meel kuugu xirtay ama maalin intaas ku booqdeen wax isdhahdeen hadal si qaldan ah u tiri ama waxyaabaha aad shalay sameyn jirto maanta sameyn wayso ka gaabisay waxa laga yaabaa sirdoon oo kale inaa u noqotid hawsha inta la qabatid tiraahdahay iyo waran meeshaas markaa la sheekeysatid qofkaaga markaa la sheekeysatid wala sheekeysatid si saaxiibtinimo waxaad ogaanaysaa wax badan aadan ogaan lahayn haddii aad ula sheekeysatid sida qof jacaylkaaga ama xaajiyadaada ama ninkaaga ama naagtaada marka qodobka afraadna wuxuu noqonayaa qodobkaas sidoo kaleeto qodobkeena shanaad ee barnaamijkan aan kusoo gabagabeynayno wuxuu noqon doonaa hadhageysanin cadowgaaga ha uga sheekeynin noloshaada iyo gurigaaga qofka ha ahaada saaxiibkaaga ama ha ahaada cadowgaaga maalinta xanaaqsantahay aad careysan tahay ha ka sheekeynin gurigaaga ha ka sheekeynin ninkaaga ama naagtaada sababtoo carada waa waxyar wayna dhammaanaysaa marka careysan tahayna waxaad xasuusataa wax walba oo qofkan kugu sameeyo qadaf mid yar ama mid weyn marka si aynan u dhicin inaad beri lagugu sheekaysto si aynan u dhicin inuu cadowga kaa helo dulduleelo uu kaa soo galo ha sheekeynin saaxiibkaaga lilaahiga adiga kuugu dhow ee aad sirta isku qarsataan sidoo kaleeto wuxuu leeyahay saaxiib lilaahi oo asaga u dhow ay sirta isku qarsadaan saaxiibka ay sirta isku qarsadaan adiga maaha saaxiibkaaga sirta sidoo kaleeto saaxiibkaas wuxuu leeyahay saaxiib kaleeto siran waxaa laga yaabaa marka arrimahaaga qoyska inuu saaxiibka saaxiib u sii dhiibo ay banaanka u baxdo beritana ay noqoto
wax aadan adiga soo heli karin. hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranina afka uuna ka soo bixin. mar hadduu afkaaga ka soo baxo waa mar uu gudahay magaalada ayuu wareegaya. markaad caraysan tahay ha sheekeynin, hala sheekeysanin saaxiibkaaga, la sheekeyso walaasha, sirtaada ma bixinayso. hooyada saaxiib la noqon, sidoo kaleeta sirtaada ma bixinayso. habaryarta, eedada, walaalada, intaba waa dad adiga ku damqanayo. laakiin saaxiibka ku dhahay hala sheekeysanin, waa la sheekeysan kartaa, wax waa wadaagi kartiin, fikradiisa waa weydiin kartaa, fikradaada waa siin kartaa. laakiin waxaan sheegayaa wixii hooso oo adiga iyo xaajigaaga idinka dhexeeyo ama adiga iyo xaajiyadaada idinka dhexeeyo uu reerkeena ku burburi karo ha ka sheekeynin. marka aad caraysan tahay fariiso kaligaa, waqti qaado, telefoon ha qaadan, qofna ha wacanin, telefoonka iska dami, mood iska gal, adiga kaligaa koob shaaha soo qaado, ku fikir waxa keenay qaladaadkan. isku dhicin. hadduu mid yahay adiga aad u heli kartidna xal u hel, hadduu yahay mid aan xal u heli karin adiga go'aankeeda qaado. yaana go'aan lagu gaarin adiga. ahaw qofka noloshiisa go'aan ka gaara. ahaw qofka noloshiisa markii xanuun dareemayo xanuunka keli ku noqdo. markuu dhahay xanuunkaaga qarso, xanuunka waa u sheegi kartaa qofka adiga kugu dhow, familkaaga ama hooyada. laakiin waxaa jira xanuunada qaar daqiiqada kooban way care ay keentay oo haddii aad qaylisid ama hadad la wadaagto keeni kara inuu reerkaaga u burburo ama keeni kara inuu beri lagugu sheekaysto. la fariisa naftaada, la sheekaysa naftaada. haddaa caraysan tahay musqusha isku soo xiro ama qolkaaga soo xiro, ooy, qayli, wax walba samee, waxaa rabti samee, kabacdi wejiga iska soo dhaq, fadhiiso, fikir. dadku waxay dhahaan wax qarsanin, waxaa qarsato way ku qarsadaan. horta kow noqo qof noloshiisa asaga go'aan ka gaari kara. noqo qof noloshiisa la saaxiiba. noqo qof noloshiisa meel gaarsiin kara. markaa noloshaada adiga la sheekayso oo ha ka sheekeynin qofka aad xiriirkiisa ka dhexeeyo. xumaantiisa ha sheegin, khilaafkiina ha sheegin. wax qarsama ku dhahay, laakiin qofka ugu horeeya, gacanta ugu horeysa naftaada ha noqoto. marka qaybta shanaadna waxay noqonaysaa ama qodobka shanaadna wuxuu noqonayaa qodobkaas inaan barnaamijkeena kusoo gabagabayn doono. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. barnaamijkeenana wuxuu noo noqon doonaa mid taxane ah, maalin walbana han idinkugu soo gudbin doono oraahyo iyo weliba barnaamijyo idin xiiso gelin doono, waxna idin tari doono, bulshadana ay u baahan tihiin. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina. haddii aad halkaan nala soo gaarteen, bila subscribe noo saar channelkeena, ka mid noqo asxaabteena, la wadaag asxaabtaada iyo familkaaga, na dhiirigelin. laagta iyo commentigana waxay ii tahay dhiirigelin. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti dambe.